ma nabad baa waa nabad magaciina maqalaya masiirkiinu waa maxay Soomaalo milgaheedii iyo masiirkeedii garato mugdigii ka hayaanto shaydaan maryooliyo munaafiqi iska naadho mustaqiinka ku taagan bay matasha iskumaan meeqaanka gobolada meel kastoo dalkeenna ah mabaadiida dawliga federaalku maamulo mawjadaha shacabka ah mawla uu ku beero miyi iyo magaalada maantadan dhex joogay muujintood u doodaa oy matasha iskumaan wasaaradda arrimaha dibadda waxay ku guulaysatay guud ahaanba siyaasadii dibadda waxaa wax la taaban karaa in maxaabiistii Soomaaliyeed ee ku dayacnayd wadamada shisheeye gabi ahaanba dalka lagu soo celiyay in la soo celiyay hawadii Soomaaliya in la xakameeyay wadamadii shisheeye iska gacmaysan jiray hay'adahooda iyo ay gacmaysan jireen siyaasadda iyo dhammaanba arrimaha Soomaaliya ayay xakamaysay oo ayaduna ay ku guulaysatay dawladda federaalka Soomaaliya siyaasadeeda arrimaha dibadda waxa ay ka qabatay waxa kamid ah waxqabadkeeda soo celinta maxaabiista soo celinta hawada dalka Soomaaliya hay'adihii shisheeye ee wadanka dibadiisa joogay dib u soo celisay oo dalka Soomaaliya xaruntii si ay ka furteen aqoonsiga baasaboorka Soomaaliya xubin noqoshada ururka IGAD warheeda inta aan idinku والله بالله دولة تنمارك إنما عادي بانوا كقيلي ورنمك UN أو عرض بارقبة أو سدا أو كادي بانينك هيسنا مالك ملقي سيقلي انتم ما يقصوا بسدا وحير مقدشة صوماليا معها صوماليا أنا مقدشة معها قاس واضح لو قلت واوي هيسن UN معها UN هيسن معها مركا دولة دان واقع قضيه وحان إذن الله هي ما شاء الله هرتع وشيخو وهرتوا دلاش الدولة الروم وخير الله سيو حتى آخرت يوسف إيار كذا أو حرناي آخرت يوسف إيار كذا ليبيا اسكو حرناي للهاي إيه ما السودان اسكو حريا مربى مالو وتوسع حتى ملهن إيار كاس آخرت يوسف إيار إلى أمريكيس إيار كذا والو سودي دولة دواء ودلاش دولة الآن لبو إلى صومر إلى وأجيال هدي إلى دولة كانين أرمها دودة دتك لليه وزارة أرمها دودة دتك سهنون أكو دلالي خير الله سي warnimayow heed anigu waxaan qabaabo annaga dalkii baan joognaa Soomaaliya waa dalkeena waa meesha ku dhalanay dibad baad leedin maalin walba dibad maxaa nooga banaan dalka gudihiisa wax ka qabsano oo dadkeena baa maalin walba dhamaanayo maxal dhig jira gaaji iyo wibi ku soo fatahay iyo bada dhinac ka soo boodiyo warniyow dalka gudihiisa wax ka qabsano dibad ma naqaana heed dibad wax laga qabto anaga maxaa naga quseeyo adeer duca qabto waxa weeye kulay garaadkaada la faactaay mar hadaa tiri dalkeena aan ka shaqeysano waa sax dalkeena inaan ka shaqeysano laakiin dalkeena wuxuu ka degilaayahay waa siyaasadda dibadda marka dibadda haddaan la soo dhuudhuujin meelaha ay ka dabacsan tahay dalkeena weligii sidaan oo ahaanaya wax qabadka dibaddu aad bay muhiim u tahay wasaaraddaasina waa shaqaysay shaqooyinka ay qabatay waxa kamid ah waxa la yiraahdaa hay'adaha NGO-yada iska imaan jiro waxay rabaan bay dalkan ka sameyn jireen kuwaasi qoful ba qardab lagu siiyay odayga u sareeyay haysana halku ka dhacayna xogtiisa waad haysaa maanta garaadkii ummadda Soomaaliyeed waa bislaaday waxayna diyaar u tahay inay daliya dibadba isku xiranto dibadduna waa muhiim siyaasadeeda door shariif ayna ka ciyaartay maanta dawladda jirta sida muuqata oo waxa ay leedahay dalka waa in maxal dhigi jira siyaasadaha dibadda uu soo dhistayo wadamada dariska uu fiilooyin ku soo xirxirtaa oo leeshiya meel leedahay oo la shaqaysta adduunka dhan in la leeshiyo way miyaadan maqal wadanka la yiraahdo Guinea oo xogaa faragelina Soomaaliya ku sameeyo Afrikaana safaaradiba waa laga qaatay xiriirkii baa loo jaray xiriirkii waa loo jaray maqal anigu xiriirka kii telefoonka maleynaya ma waxa kaloo ka darnay ninkii qaramada midoobay oo u fadhiyo xamar haysan وش نفتركيش الدولة وحال كباح عمر على فيجي لواتي أفر ساعة مدة خبتها لي معناه أسمع حسب مذاي وناس الدولة ده وناس أسي حكومة مذاي عرفوها يا مدحوينا ناس أسي حكومة الزرع ناس أسي حكومة الدولة ده ناس أسي حكومة ملينا وعلي يرميني كذا هذا نكتون سن صومالي ما توريانو ninkii moodo Soomaaliya waa tabariyar walla been buu isku sheegay been riyadu haya maalin cadooyas biskiriyada wadaadkaas laakiin waxa jirtaa runtii waa laga dawageeyay waxa la minkiin aadora ma shaqul mu kuleediide waa lagu suubiye eeda isku ma yaa waalana wargili soo taan xiraynay ma masaakiintii yaray oo gabigeeda laga cuno ayaxa
waa la yaabo markay balaayo iska dhigeen moogta kuwaas hadda waxoo lama joogaan inta xariga loo goynay ma kuwa makii iyo islaantii timaha ee deynta wadatay kuwaas xariga ku fiican waa ku fiican tahay war heedaha reer iskumaanow war baa soo dhacay cirku ka soo dhacay maya cirka kama soo dhicine ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya wuxuu yiri dadkii musuqa u bartay labada ka siinayay amrigoodi waa soo kuusmay ee haddaad wax isku ogtihiin luuqa meelaha saa u soo marmarteen waxaan is ilaaliyo is jir ool baari akoonkay waxba laga heli maayo horta run way gabartaan warkeedan waraa iiga baxay gabartaan warkeeda waraa iiga baxay macnaa isku dhudhunjiskii aw isku dhunjiyow ay wadeen macnaa waa la iskiga daw yimid macnaa ma kastaadi macnaa loo wado warkaan waxa loo wadaa hal qof leh waa ninka loo wado ninkii shalay isbari isku dhudhunjiyo si shalay xalka ma ahe xagaaya yimid soo xanjeera lisdhowaaya si shalay wareedhaha waxbaa yimid waxyaabihii aan faraha kula jiray yaa wallahi waxbaa haysto waa inaan ka digtoonaada arrinta ka tawaabashaysta marba haddii la yiri musuqmaasuq baa faraha laga soo galaya tawaabashaysi weyn inaan samaysto way alla ilaahay la jirna gal dhagta lagu soo qaban waxa maqli jire waxa hadda socota mahadi ku sheeg beelana ku dabagal هاي مركان مقعيدا مقلو رزق ليسو ميساميا باي soo galan war waa maxay ma hadda loo miisaamaya wala war baa jira wariyaaye waxa isku sheegtay wax ka mujirto hadda waxa bilowday asaaqada lagu cariirisiin ama koombo wax loo bagbaagtin ma keentan adinka idin taala waxa si hadi xalafkaada ka badan arta ina cuntid miya waaliski yeelay waaldiin ka badsi sababo u leeyahay madaxdo maasuuqay mamnuuc waana meel marishan madaxda musuq maasuuqay mamnuuc waana meel marishan madaxda musuq maasuuqay mamnuuc waana meel marishan ma hubantay haba mamnuucaane نكان ساكا واتجينا قبلها درس كده معرف فرحية حليمية عاشية وع نكان الحمد لله كان أنا صارع نكان صعنا حلبان بس ولا بيننا حلبان محايا هي أيانتي أن دور ما دقمنا كدورنا أنا هقول على على كي أن دقمنا كدورنا waxuu rabaa inuu doorashada soo socota xildhibaan noqdo marka wuuna noo imaanaya ma ninkii maalinkan halkan ku dooranay suu nooga dhaqaaqo 3 sano iyo barka ka soo wareegtaa saaka noo socda ila doorashada kala soo dhaw moogtahay wala iska daa booskiisa inaad u taagana kaala yargay soo raacnaya kaala ada ma sheekadaas akeen aniga soo ma ninkii oo tii hore ma ku boodnaa oo muxuu idin qabta waxna ma qanbala waxa loo doortay xildhibaan macnihiisa ma taqaan deegaanka laga doortay waxa idin ku soo noqdo ka shaqeeyo nacadaha gabdhahana ika bunguri hayabo booskiisa ninkii wadaadkii abal rabaa booskiisa in la galo gabartaan ida ka shaqaan sarabta gabdhiga ka shaqaan marka door leedeen aniga doorta ku nimaana dib u soo naaqay oo idaayahay doorama nimaana dib u soo naaqay oo idaayahay doorama war isku maana alla ifasaxo xagee lagu fasaxaa tababar baan u socdaa oo tababarka muxuu walaale wasiir ku-xigeenka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa saxafiyiinta Soomaaliyeed tababar u furay cilmi kororsi ah marka qaybtii hore way baxdo qaybtan dambe aanu nasiib yeesho ku jiraaye hal ifasaxo ma sha Allah adoo wariye fiican ma hadda doo soo noqonaysa waa ku fasaxaynaa ma noo soo noqonaysa adoo wariye fiican wax fiican bartay wariyaasha niyaw dadkii dhihi jiri way dawladda taagta daran hortaas ma xasuustin waxa way laga joojiyay maaha waxayna haddana dhihi jireen unakan maxay dhihi jireen marya calasta ma xasuustino kan dhihi jiri hadda waxaas dhan inay dhamaadeen horta dawladda inay israacdi waxaan ku fahmooyo waaya dawladda lugaheeda waa ka kadeen markaan wax laan ku fahmi wariyaashii adab daran dadku dhihi jiri dawladda taagta daran iyo ciidanka marya calaska oo na dhihi jiri lamadaasba mee waa ka baxeen war inta waxa ka sii daran anigu wariyaasha Soomaaliya aan uga yaabanaaba
ma kala yaqaanaan mudaharaa iyo banaanbax iyo maxaa la dhahaa wixii oo dhan isku balaaqoyaan dadkan tababar weyn bay u baahan yihiin ha soo kala bal waxay ku leeyihiin maanta magaalada muqdisho waxa ka dhacay banaanbax balaaya ka dhacday banaanbax iyo mudaharaad waa kala labo dadkan waa inay si fiican u soo bartaan luqadda iyo waxa idin leeyahay u kaadi sugu waxa idin leeyahay wariyaasha horta waxba eedeynina dhageysta marka koobaad dalka dhib badan oo soo maray burbur badan oo soo maray ciidamada laftirkooda waa la isku shandheeyo waa la hagaajiyay ayaga laftirkooda waa la tababaray wariyaashana waa sidaas oo kale hadday tababarkooda socotaa dadka hadday israacayaan rafida ka daa ilaahay ka cabsi hey war waxa weeye marka mar hadiiba maarta la istababarahayo waxaan isku maan ku nahay Soomaha gabadhan inay wariye fiican soo noqoto dadkii dalka u shaqeeyay hey waa ku fasaxay haddaad maada sulugto adigoo aan murmaynin dadku waa isku maan oo isku mowqifna weeyo madasha ka dhaxaysiya miiska dooda u taalle adigoo aan masuugin oo mirif ciil isla siinin ha munaafaqadayna bal markaa ka jeedi